A warning, this report by our international affairs editor, Dominic Waghorn, has images of people killed in the attacks. In an incubator in a Gaza hospital, a baby girl less than a day old. She was born an orphan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka nuxurka dhacdooyinka oo inta badan aan kusoo arurno wararkii ugu dambeeyay ee markaasi ka dhacaya caalamka iyo dunida intaba. Qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah saldhig ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Syria oo weerar gantaala lagu qaaday. Magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin waxaa ka dhacday qiso aad u la yaab badan. Hooyo uur lahayd oo ku dhimatay duqeyn ciidamada Yuhuuddu ay ka geysteen marinka Rafah oo ay ku nool yihiin dad badan oo ka barakacay gudaha magaalada Gaza oo iyadoo cunugii uurka ay ku siday oo nool yahay laga soo saaray. Waa arrin ay dad badan aad ula yaabeen runtii oo aad fajiciso ugu noqotay. Qodobada kale oo aad ku daawan doontaan barnaamijkeedana waxaa ka mid ah madaxii sirdoonka ciidamada militariga Yuhuudda oo iscasilay wuxuuna sheegay inay ku guuldareysteen inay ka hortagaan weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay ku soo qaaday Israa'iil iyo waliba inay soo furtaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan ururka Hamas. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku daawan doontaan barnaamijka nuxurka dhacdooyinka oo inta badan aad ka daawataan channelka nuxurka. Fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay baraha iyaga bulshada waxaa ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad Facebooka iyo YouTube-ka labadaba aad follow dhahdo subscribe-na aad saarto. aan ku bilownay saldhigga ciidamada militariga ay ku leeyihiin dalka Syria ayaa waxaa duulaan ku qaaday koox ka mid ah kooxaha ay Iran taageerto oo ku sugan gudaha dalkaasi Ciraaq. Weerarkan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay qaadeen kooxaha ay Iran taageerto oo jooga gudaha dalkaasi Ciraaq. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhiggaasi ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in saldhigga ay soo gaadheen ilaa 5 gantaal oo qaarkood la soo riday halka kuwana ay gudaha u galeen saldhigga balse lama sheegin wax khasaare ah oo halkaasi ka dhacay. Waxa kale oo intaasi uu ku daray in gantaaladan laga soo riday magaalada Sumeera ee dalka Ciraaq taas oo saaran xadka kala qaybiya. Gantaalada lagu soo weeraray saldhigga ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay in qaarkood la burburiyay oo intooda badan aysan wax khasaare ah oo weyn ka geysan gudaha saldhigga. Taliska ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay gantaal ay ku burburiyeen baabuurkii laga soo riday gantaalada ee lagu soo weeraray saldhiggooda ku yaala dalkaasi Syria. Waa sida ay sheegteen ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Syria. 48 saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Gaza ka dhacay arrin naxdin leh. Ciidamada Yuhuudda ayaa waxa ay duqeeyeen guryo ku yaala xeryaha barakaca ee Rafah oo ay ku nool yihiin dadka Falastiiniyiinta ee ka barakacay xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaza. Duqeynta ay ciidamada Yuhuudda sameeyeen ayaa waxa ay ku dileen 22 qof oo 18 ay carruur yihiin. Dadka ku dhintay waxaa ku jirtay hooyo uur leh oo u dhimatay dhaawac ka soo gaadhay madaxa. Hooyadan ayaa waxa ay caloosha ku siday gabar yar hase ahaatee iyadii waa ay geeriyootay balse cunugii caloosheeda ku jiray amarka Ilaahay wax gaadhay ma jirin waxaana laga soo saaray oo operation qalliin ah waliba looga soo saaray oo laga soo badbaadiyay cunugii caloosheeda ku jiray. Arrintan ayaa waxaa si weyn u falanqeynaysa warbaahinta caalamka iyaga oo ka hadlaya arrinta mucjisada ah ee dhacday. Hooyada oo iyada oo meyd ah la geeyay cusbitaalka ayaa waxaa la sheegay in cunuga laga soo saaray caloosheeda isaga oo nool oo dhaqaaqaya lana dareemay markii la arkay cunugu inuu nool yahay oo uusan cunugu waxba qabin. Arrintaasi waxay noqotay fajiciso weyn oo dad badan runtii ay la yaabeen. A warning, this report by our international affairs editor, Dominic Waghorn, has images of people killed in the attacks. In an incubator in a Gaza hospital, a baby girl less than a day old. She was born an orphan, delivered by surgeons as her mother lay dying. فكانت حالة استعجال إنه نفتح البطن. We had to do an emergency cesarean. madaxii sirdoonka ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa iscasilay wuxuuna sheegay in ciidamada ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay ku soo qaadeen saldhigyada Israa'iil wuxuuna sheegay in
ay ku guuldareysatay Israa'iil inay soo furato maxaabiista ay weli gacanta ku hayaan ururka Xamaas. Ninkan ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto ururka Xamaas ayna foolxumo hor leh ay kala kulmayso maalinta ka dambaysa. Dagaalkuna uu dowladda Yuhuudda lugaha dhiiqa u sii gelinayay haddii aan wada xaajood iyo wada hadal aan lagu dhamaynin. Qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay barnaamijkeenii kala socoteen channelka Nuxurka Dhacdooyinka. fadlan daawada haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar noo like garee barnaamijka noona share garee wixii aragtidaada nagula wadaag dhinaca commentiga. mahadsanidin.